sirta eyda madow qaybtii afraad go'aankii jiniida habeenkii afraad ayaa bilaabmay boqorkii indhihiisu kalama qaadin labada ey madow ee silsiladaha ku xirnay qalbigiis waxaa ku jiray caro iyo yaab isku dhafan yaabka qalbigiis ku jiro wuxuu ahaa sidee bay dadku noqdeen eeyo ayuu si degan u yiri ganacsadihii ayaa madaxa hoos u dhigay boqorow waxaan ahayn walaalo qolka dhan ayaa aamusay saarsaad ayaa hadalkeedii sii waday markii walaalihii hunguri iyo maseer ka buuxay ay isku dayeen inay dilaan walaalkooda ganacsada ahay jiniid ayaa la socotay arrinkaas aragtay iyada ayaa cirka ka soo degtay si dib oo ololaayo waxayna tiri qof hunguri iyo maseer dartiisu isku dayay walaalkiisa inuu u dilo ama sharaf ku iibsado miyaan dhaafayaa walaalihii waxay ka baryeen naxariis laakiin jiniidii waxay tiri in qaybtiin waxay noqon doontaa cashir aan guligiina ilmaami doonin hal daqiiqo gudahooda jirkooda bini'aadinka ayaa isbedelay lafahoodii ayaa khaloocday waxayna isku bedeleen laba ey oo madow laakiin taasi ma ahayn dhammaadkii boqorkii si degdeg ah ayaa u yiri maxaa kale oo dhacay sadihii cod gariiraya oo naxtinleh ayuu ugu jawaabay boqorkii jiniidii waxay tiri haddii aan maalin u naxariisto dib ayay u soo celinayaan falkoodii xumaay naxariis daradii iyo hunguriga badnaay khiyaanada ahay weligood ay ahaan doonaan hadday sameeyaan camalkaas mar kale ay ku laabtaan boqorku wuu aamusay markaas saarsaad ayaa si tartiib ah u tiri laakiin boqoroo waxaa jira sir aan weli la sheegin boqorku indhihiisa uu kala qaado wuu yaabay sir kale saarsaad ayaa tiri habeenka xiga ayaan sheegi doonaa waxa ku dhacay jiniidii lafteeda waagii ayaa soo baxay boqorka mar kale ma delin habeen kale ayaa badbaaday saarsaad maxaa dhici doona marxaladda sidee noqon doontaa habeenka shanaad la socod wanaagsan markii idinku horeysa haddee tahay janaalka soo boqotiin subscribe saara like saara wixii tale ah iyo fikirkiinana qaybta commentiga ku soo qora